qodobada kala duwan ee warka ku daawanaysaana waxaa ka mid ah kulan lagaga hadlay la dagaalanka tahriibka ayaa ka dhacay xafiiska ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda. wararka caalamkana dood adag ayaa xalay dhex martay murashaxiinta Trump iyo Clinton ee dalka Mareykanka. kuwaasi waxaa inta wadeel qodobada warkaygu door korona haatan isagii oo dhan bismillaahi raxmaani raxiim. ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda mudane cabdulqaadir kaabil maxamed ayaa maanta gudoomiyey kulan muhiim ah oo looga hadlayay dadka tahriibta ee jamhuuriyadda Jabuuti maraya. kulankaasi ayaa waxa uu ka dhacay olka shirarka ee xafiiska ra-iisul wasaaraha waxaana uu qayb ka yahay wadahadalka midowga reer Yurub iyo qaaradda Afrika ee ku aadan hortaaga tahriibta. kulankaasi waxaa ka qayb qaatay danjiraha Faransiiska u fadhiya jamhuuriyadda Jabuuti Christophe Guiou iyo agaasimaha amniga qaranka mudane Xasan Saciid Khayre iyo agaasimaha xafiiska wasiirka arrimaha gudaha. ujeedada kulankaasi ayaa waxa uu ahaa xoojinta iskaashiga iyo wada shaqaynta la dagaalanka dadka tahriibta iyo kuwa ka ganacsada ee heerka degmo iyo kuwa qarneed intaba. ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda ayaa waxa uu kulankaasi soo dhaweyn wanaagsan u rajeeyay dhammaan mas-uuliyiinta ka qayb qaatay waxaana intaasi kadib uu ka waramay mowduuca fadhigaasi iyo ahamiyadda xukuumaddu ay siinayso. gudoomiyaha golaha baarlamaanka mudane maxamed cali xumed ayaa maanta xafiiskiisa ku qaabilay danjiraha dalka Faransiiska u fadhiya Jabuuti Christophe Guiou iyo la taliyaha ciidamada Faransiiska ee ku sugan Jabuuti General Thierry. kulanka dhex maray gudoomiyaha golaha baarlamaanka iyo marti sharafkaasi ayaa waxa uu ka qabsoomay qolka marti sharafka ee dhismaha golaha baarlamaanka waxaana uu joogay agaasimaha xafiiska gudoomiyaha golaha baarlamaanka Mahdi Waabari Xasan. xiriirka laba geesoodka ee taariikhiga ee u dhaxeeya labada dal iyo labada ummadood iyo habkii loo horumarin lahaa loona xoojin lahaa iyo sida daruuri ay u tahay xoojinta iskaashiga u dhaxeeya labada baarlamaan ee Jabuuti iyo Faransiiska ayaa ahaa qodobadii laga wada hadlay. gudoomiyaha golaha baarlamaanka ayaa carab ku dhuftay sida daruuri ay u tahay in laba jibaaro wax isweydaarsiga rasmiga ee Jabuuti iyo Faransiiska taasi oo ujeedada ka dambaysa ay tahay xoojinta xiriirka saaxiibtinimo iyo iskaashi ee ka dhaxeeya labada dal oo meel wanaagsan maraya. waxaa sidoo kale uu ka hadlay ahamiyadda ah in xoogaga Faransiiska ee ku sugan Jabuuti ay u fuliyaan howlgallo bulshada dalkeena taasi oo saameyn wanaagsan ku yeelan doonta. taliyaha xoogaga Faransiiska ee ku sugan Jabuuti ayaa ballan qaaday howlgalida xoojinta howlgallada ciidanka Faransiiska ee ku aadan taakulaynta iyo garab u fidinta bulshada si loo horumariyo nolol maalmeedkooda. wasiirka caafimaadka Dr. Jaamac Cilmi Cokiye ayaa maanta xafiiskiisa ku qaabilay wafdi ka kooban howlgalka caalamiga ee Gavi ee hay'adda adduunka ee caafimaadka iyo hay'adda UNICEF si looga wada hadlo qiimeynta mashruuca xoojinta nidaamka caafimaadka ee haatan ka socda wasaaradda caafimaadka. kulankaasi shaqo waxa uu jooga xogayaha guud ee wasaaradda caafimaadka, kormeeraha guud iyo adeegyada caafimaadka iyo la taliyayaasha wasiirka caafimaadka iyo agaasimayaasha dhowr waxyood. ujeedada shirkaasi ayaa ah in la falanqeeyo hor u socodka mashruuca xoojinta barnaamijka ballaaran ee ku aadan talaalka RSS Gavi oo hawshiisa lagu jiray tan iyo sanadkii hore. waxaa sidoo kale kulankaasi shaqo lagu soo qaaday diraasad habka iyo nidaamka lagu horumariyo nidaamkaasi caafimaadka sida horumarinta taxanaha qaboojiyayaasha ee maareynta kaydka talaalka, soo iibsashada qaboojiyayaal loogu talay talaalka ee dhammaan xarumaha caafimaadka. xogayaha guud ee wasaaradda ayaynu ka wareysanay sida iyaguna wax noola qaban lahaayeen annaguna waxa anjadaha noogu jira sidaan ma garanaysaa caqabadaha horyaalla talaalka siduu u hirgalo sidaan annaguna dhinacayaga aan hawl u gelin lahayn effort badan aan u gelin lahayn aan uga saarno. iyaguna waxay raallina u noqdeen inay na hor joogaan inay ma garanaysaa na caawiyaan sidaan ma garanaysaa talaalkaasi aan hir u gelin lahayn. waayo talaalku waxa weeyaan waa udub dhaxaadka saxada ciyaalka. hadduuna talaal jirin ilmuhu caafimaad qab ma yeelanayo. wuxuu ka mid yahay wax udubaha ama kaabaha asaasiga ee caafimaadka ayuu talaalku ka mid yahay. waa wax muhiima. wasaaradda caafimaadka uu hormood ka yahay wasiirkayga Dr. Jaamac Cilmi Cokiye wuxuu u heelan yahay annaguna aan ag joognaa inuu talaalku waxa ugu horeeya hirgala inuu noqdo isagoo ka qayb galaya sidaas soo sheegay caafimaadka oo ilmuhuna waxa weeyaan waa ayaha wadankan haddii la yiraahdo. wakiilka OMS oo isaguna wareysi aan la yeelanay waxa uu si diiran u soo dhaweeyay wada shaqaynta joogtada ee xukuumadda Jabuuti iyo hay'adda caafimaadka adduunka ee OMS
waxaana uu hoosta ka xariiqay in barnaamijkan loogu talagalay kordhinta caafimaadka dadweynaha iyo suuragalnimada ka hortaga xanuunada sida ba-an u waxyeelay caruurta. wakiilku waxa uu sheegay in howlwadeenada kala duwan ee ka shaqeynaya barnaamijka uu rajeynayo in sida ugu habboon u howlgalaan si loo gaadho natiijo wanaagsan. wafdi ay ka kooban wasaaradda waxbarashada qaran iyo tobabarka xirfadaha oo uu warkacaya wasiirka tacliinta sare iyo cilmi baadhista oo ah kusimaha wasiirka waxbarashada qaran iyo tobabarka xirfadaha Dr. Nabil Mohamed Axmed ayaa maanta booqasho kormeer ah kusoo maray afarta xarumood ee ay ka socdaan imtixaanada qoraalka ee tartanka shaqo-gelinta ee barayaasha waxbarashada asaasiga. intii booqashadaasi lagu guda jiray wafdiga wasaaradda waxbarashada qaran iyo tobabarka xirfadaha ayaa waxa uu helinayay xogayaha guud ee wasaaradda shaqada Cabdalla Cali Maxamed si uu kormeero habsami u qabsoomida imtixaanada tartankaasi. waxaana sidaasi wafdigu si daba joog ah u gaaray afarta xarumood ee imtixaanku ka socday ee kala ah dugsiga Annex 2 Palmare 1 dugsiga dhexe Bilcaws iyo dugsiga dhexe ee Xumuli. waxaana ay soo booqdeen fasalada murashaxiinta tartankaasi shaqo-gelinta barayaashu ay ku sugnaayeen ama imtixaankooda ay ku marayeen. xogayaha guud ee wasaaradda shaqada Cabdalla Cali Maxamed ayaa soo dhaweeyay qabanqaabada wanaagsan iyo habsami u qabsoomida tartankaasi. waxay diyaarisay imtixaanka ay ku loolamayeen 1800 oo ardaydaayoo inta halkaa ku guulaysata ka qayb gali doonta formation oo isku diyaarin doonta macallimiinta tacliinta hoose. imtixaanka waxaa lagu soo qabanqaabiyey 4 iskool. annaga oo ministerkii nala socdo waan soo wada kormeernay. si fiican bay arrimuhu u socdeen, si fiican ba ay u dhaceen. ardaydu way wada joogeen intooda badan. waxa aana la joogay macallimiintii loogu talagalay inay surveeyayaan. wasaaraddu gebigeyguna way ka soo wada qayb gashay arrinta sidii ay si fiican u dhici lahayd. geestiisa wasiirka tacliinta sare iyo cilmi baadhista oo ah kusimaha wasiirka waxbarashada qaran iyo tobabarka xirfadaha Dr. Nabil Mohamed Axmed ayaa isaguna aada u soo dhaweeyay qabanqaabada tartankaasi oo u baahnaa buri waqti. waxaana intaasi u raaciyay in kuwa ugu wanaagsan laga shaqeyn doono kadib tartankaasi waxa ay qaadan doonaan buri tobabar ay xarunta tobabarada ee waxbarashada asaasiga ay u fiin doonto. wasiirka waxbarashada qaran Mustafa Maxamed Maxamuud iyo xogay dowladeedka arrimaha bulsho Marbumuna Cusmaan Aadan ayaa ku sugan magaalada Washington halkaasi oo ay ka qayb qaadanayaan kulanada sanadlaha ee Banka Adduunka iyo shirka istaraatiijiyadda siyaasadda horumarka ee Djibouti. shirkaasi ayaa waxay sii soconaya ilaa maalinta Arbacada ee 12 bishan. waxaana wasiirka waxbarashada qaran iyo xogay dowladeedka arrimaha bulshada shirkaasi istaraatiijiyadda siyaasadda horumarka ee Djibouti ku soo bandhigeen siyaasadda xukuumadda ee daryeelka bulshada iyo horumarinta nolosha dadweynaha. wasaaradda waxbarashada iyo xogeynta dowladda ee arrimaha bulshada ayaa ka wada shaqeynaya diyaarinta xog ururinta haynta bulshada si looga shidal qaato horumarinta nolosha dadka hayntooda hooseyso. wasiirka tamarta iyo kheyraadka dabiiciga Dr. Yaasiin Xuseen Buux ayaa xafiiskiisa ku qaabilay danjiraha dalka Jarmalka u jooga Jamhuuriyadda Djibouti Dr. Volgal Barashey. labada dhinac ayaa waxay isla soo qaadeen xiriirka saaxiibtinimo iyo iskaashiga u dhexeeya labada dhinac intii kulankaasi lagu guda jiray. wasiirka tamarta iyo kheyraadka dabiiciga Dr. Yaasiin Xuseen Buux ayaa waxa uu tilmaamay mashaariicda waaweyn ee dhinacyada tamarta gaar ahaan mashruuca pipeline-ka ee isku xidha Djibouti iyo Ethiopia iyo dhismaha warshad qaybka horumarinta tamarta is-cusboonaysiisa. waxaa kaloo ka waramay in mas'uuliyiinta Djibouti ay ka howlan yihiin sidii ay u gaari lahaayeen mustaqbalka dhow tamar laga dhalinayo uumiga dhulka hoostiisa oo lagu qiyaasay 1,000 megawatt sanadka 2020. geestiisa danjiraha cusub ee Jarmalka ayaa sheegay inuu diyaar u yahay la shaqeynta horumarinta xiriirka Djibouti iyo Jarmalka. kulankaasi waxa uu jooga xogayaha guud ee wasaaradda tamarta Abubakar Xuseen Ducaale, la taliyaha farsamo ee wasiirka Cumar Axmed Wacayse. iyadoo in ku guda jirno xuska toddobaadka barayaasha gobolka Carta ayaa u dabaaldegay munaasabadda toddobaadka qaran ee xuska macalinka. munaasabadaas oo iyadoo ku beegnayd 5tii bishan Oktoobar oo ahayd maalinta caalamiga
macalimiinta waxaa lagu qabtay dugsiga sare ee gobolkaasi Carta. munaasabadaasi waxaa u joogay mas-uuliyiinta kala duwan ee gobolkaas sida prefega gobolka, gudoomiyaha maamul goboleedka, agaasimaha goboleedka wasaaradda waxbarashada qaranka iyo tababarka xirfadaha Xuseen Barre Cawaale iyo mas-uuliyiinta dugsiyada gobolkaasi Cuqaashi iyo waliba wakiilada bulshada rayidka. waxaa sidoo kale u joogay qaar ka mid ah mas-uuliyiinta dugsiyada hoose dhexe iyo sare ee gobolkaasi. waxaa hortaba munaasabada xuska maalinta caalamiga ee barayaasha lagu furay aayadaha qur-aanka iyo bandhigyo kale oo qayb ka ah xuska maalinta caalamiga ee barayaasha. gudoomiyaha maamul goboleedka iyo prefega gobolka Carta oo ka hadlay munaasabada xuska maalinta barayaasha waxa uu rajayay dhammaan barayaasha xus wacan iyadoo uu ku booriyay in dadaalka la xoojiyo sidii loo horumarin lahaa tayada waxbarashada ee dalka. waxaana ka mid ah hadaladoodii waxaan weeyaan maanta waxaan xusaynaa maalintii macallimiinta oo magaranaysaa muhiimiyadooda aba magaranaysaa magacooga meel kastaba laga garanayo. maalintii loogu daray inay maxaa ahayd maalinta macallimiinta. kolkaa waxaan leenahay maanta oo aan joogno maalintiinii waxaan leenahay magaranaysaa aad baan nii hambalyeynayaa waayo shaqada haysiin shaqo muhiima weeyaan, shaqo aad u culus weeyaan, shaqo in ninagu garab galo oo ninagu tahniyadeeyo magaranaysaa weeyaan, shaqo ummad oo dhan ay naga baahan tahay weeyaan. macaliminnimadu sida ay dadkuba u wala garanayaan inaad la ogyahay hawl culus inaad haysiin waa la wala ogyahay, nin kastina wuu nii ogyahay hawshaa haysiin. ininkuna waxaa loo baahan yahay hawshaasi intaa leeg inaad ininkuna aad dib iskugu noqotiin oo aad magaranaysaa hawshaa dib aad magaranaysaa u xoojisiin oo aad quwaddiinna duldhigtiin. mar labaad waan hambalyeynayaa. maanta waxaan xusaynaa maalintii macallinka. waayo macallinku waa ka mas-uulka ah, ka hooyad aabba ka wax wada baray weeyaan. qiimo ayay leedahay maalinta macallimiintu. haddii la odhanayay ninka geedaha beera amba jardiniyaga afka qalaad lagu yidhaaho geeduu beeraa, macallinku dad buu beeraa. ninka dad beerana wax ka qaalisan ma jiro. waxaan leeyahay dadaalka inaad halkaa ka sii wadiin, inaad dadaalka halkaa ka sii wadiin oo ardayda aad waxbaraysiinna halkaa aad uga sii beerisiin si waxbarka iyo dadaalka aad haysiin aad labalaabtiin baa loo baahan yahay. waxaan leeyahay macallinka dalka meel uu joogaba maanta ka jooga ilaa iyo dawdawya ilaa iyo cali cune waxaan leeyahay hambalyaan leeyahay, maalin wanaagsan baan leeyahay, dadaalkana halkii ka sii wadaan leeyahay. sida gobolada kale ee dalka gudihiisa gobolka Cali Sabiix ayaa sidoo kale laga xusay maalinta caalamiga ee barayaasha. xuska munaasabadaasi ayaa waxaa u joogay prefega ku-xigeenka gobolkaasi, gudoomiyaha maamul goboleedka, wafdi ka socda wasaaradda waxbarashada qaran iyo tababarka xirfadaha. furitaanka haddaba munaasabadaasi ayaa waxaa hortaba lagu furay miisiga astaanta oo ah calanka. waxaa sidoo kale lagu soo bandhigay heeso gabayo loogu talagalay xuska munaasabadda caalamiga ee barayaasha loo asteeyey. mid ka mid ah barayaasha gobolka Cali Sabiix ayaa ka waramay howlaha shaqo ee baraha, waxaana halkaasi macno ka bixiyey howlaha baruhu uu qabto. mas-uul ka mid ah dugsiyada waxbarasho ee gobolka Cali Sabiix iyo agaasimaha waxbarashada gobolada wuxuu hambalyo iyo bogaadin ay u direen dhammaan macallimiinta dalka. waxaan jecelahay inaan waana u celiyo ka yidhaahdo macallimiinay ilaahay haddii aad ka yaabtaan wixii inagan ni soo baray haddaad ciyaalkiinna si fiican u bartaan bulshada aad ku dhex jirtiin horumar bay gaadhaysaa, horumar bay gaadhi dhaqaale, horumar bay gaadhaysaa waddanka khayraadkiisa, horumar bay gaadhaysaa caalamka inay la jaan qaado. macallimiinta Cali Sabiix waan leeyahay ummaddiinna u shaqeeya, ilaahay xaggiisa karaamad baad ka helaysaan, ciyaalkiinna way liibaanayaan. waxaan niin rajaynayaa maanta oo tahay maalintiinnii feedka, waxaan niin rajaynayaa
bashbash iyo barwaaqo ilaahay hana liibaano waddankeena daacadaan ugu shaqayno annagu waxaanay dadkii haddee tala soconaya reetareedka gelayaan nahay waa inaan aragnaa dad karaamo leh oon mas-uuliyaddan u dhiibnaa macallinku ma dhiga uun garaameer iyo matemaatig iyo konjugeeso ma dhigo wuxuu dhigaa raganimadu dhigaa wuxuu dhigaa berritoola ninka aan noqonaynuu dhigaa ninuu maanta macallin u soo dhigin halkan ma joogo kolkaa dhammaantiin macallimiintana waxaan leehay inaad guntida dhiisha iskaga dhigtiin ood ma garanaysaayey wax alla wixii aad u qaban kartiin oo dhan aad ka hagran ciyaalka insha allah gudoomiyaha maamul goboleedka cali sabiix buu ahaa. gobolka Tajaro waxaa sidoo kale laga dhaqaajiyay maalinta caalamiga ee barayaasha waxaana munaasabadaas lagu qabtay caasimadda gobolkaasi waxaa kasoo qayb galay ardayda waalidada barayaasha iyo mas-uuliyiinta gobolka iyo kuwa waxbarashada wasaaradda waxbarashada qaranka ee tababarka xirfadaha ee heerka gobol. xuska maalinta caalamiga ee barayaasha waxaa lagu soo bandhigay ciyaaraha hidaha iyo dhaqanka gabayo iyo heeso si weyn loogu xusayo maalinta barayaasha loo asteeyey oo intuba hoosta ka xariiqaya kaalinta baruhu ku leeyahay bulshada. intaas kadib mas-uuliyiin kala duwan oo halkaasi ka hadlay waxay dhammaantood xuseen ahmiyadda maalintan u leedahay barayaasha iyo dhammaan caalamka intiisa kale waxayna hoosta ka xariiqeen hawsha baraha in ay tahay mid aada u adag balse ay u baahan tahay dulqaad iyo xilkasnimo. madaxa wasaaradda waxbarashada qaranka ee gobolkaasi oo ka hadlay madasha munaasabadda ayaa waxa uu tilmaamay in loo baahanyay in la xoojiyo dadaalka si markaasi kor loogu qaado tayada waxbarashada ee gobolka Tajora. ugu dambeyn waxa uu sheegay in wasaaradda waxbarashada qaranka ay dadaal weyn ugu jirto sidii ay kor ugu qaadi lahayd dhammaan haynta barayaasha. waxa weeyaan ayaantani waa ayaan macallimiinta ayaan qiimo leh weeyaan ayaan in la xuso macallimiinta shaqadoodu waa shaqo culus waxay hayaan dhul adag bay hayaan dhulka ugu dheer mas'ali hoosteeda ilama biyacday dhulka ugu dheer oo dhan bay joogaan macallimiintu caruur bay hayaan dhulkaabay wax ku baraan cidlooyinka tacliinta waxa weeyaan waxaa keliyatee adduunyadu horumar ku gaadho waa tacliinta waa taasoo madaxweynaheenu uu aad iyo aad ugu gudbiyey ugu beeriyey ula dadaalay. maanta waan arkaynaa mudhaheegii halkay socoto inta dhiiseeya jirta gobol kaste wuxuu leeyahay maanta dhiisayaal qofba ma dhaadhaco Jabuuti ma tago gobolladoo dhan gobol kastaba wixiisa isbuu iyo u maamushaa ninba waxaanan hayn universityga intii kaloo dhan gobolladu halkaabay wax ku dhigtaa. sida gobolada kale ee dalka gudihiisa gobolka Waqooyi ayaa sidoo kale laga xusay maalinta caalamiga ee barayaasha. xuska munaasabadaasi ayaa waxa uu joogay prefect ku-xigeenka gobolkaasi gudoomiyaha maamul goboleedka wafti ka socda wasaaradda waxbarashada qaran iyo tababarka xirfadaha. munaasabadaasi xuska tababarka baraha ayaa waxaa hortaba lagu furay miisiga astaanta u ah calanka. waxaa sidoo kale lagu soo bandhigay heeso gabayo loogu talagalay xuska munaasabadda caalamiga ee barayaasha. mid ka mid ah barayaasha gobolka Cali Sabiix ayaa ka waramay howlaha shaqo ee baraha waxaa halkaasi macno kooban ka bixiyey dadaalka barayaashu ugu jiraan. mid ka mid ah barayaasha gobolka Waqooyi dhahday oo macno ka bixiyey munaasabadaasi ayaa si qoto dheer uga hadlay hawsha iyo xilka saaran barayaasha. rifayga gobolka Ubuq halkaasi ka hadlay ayaa waxa uu rajeeyay dhammaan barayaasha xus wacan wanaagsan kuna dhiirigeliyay in halkaasi ay ka sii wadaan dadaalkooda ku aadan kor u qaadida tayada waxbarashada waxaana uu u hambaliyay dhammaan barayaasha oo uu ku tilmaamay muftaaxa horumarka bulshada. gudoomiyaha maamul goboleedka oo halkaasi isagu oo ka hadlay ayaa hortaba mahadnaq ballaaran u soo jeediyay dhammaan barayaasha isla markaasina uu xusay xus wacan oo wanaagsan waxaana uu sheegay in barayaashu ay yihiin kuwa iyagu ubadkeena ku barbaara aqoonta iyo cilmiga. waxaa sidoo kale uu sheegay inay yihiin kuwa iyagu soo dhisa hagaajina mustaqbalka.
xarunta horumarka bulsho ee xaafadda toddobaad caasimada waxaa laga dhaqaajiyey tababar xagga tolmaha iyo barashada informatiga aaladaasi oo loogu talagalay haweenka xaafadaasi. munaasabadda dhaqaajinta tababarka waxaa u joogay mas-uuliyiin ka socda xogeynta dowladda dhalintii ciyaaraha, waxaana ay halkaasi ay ku boogaadiyeen dhalinyarada iyo haweenka tababarkaasi ka qayb qaadanaya, iyagoo hoosta ka xareeqay faa'iidada ayuu tababarkani u leeyahay dadka ka faa'iideysanaya ee ku dhaqan xaafadda toddobaad. mas-uuliyiinta xogeynta dowladda ee dhalintii ciyaaraha ayaa hambaliyey haween ka qayb qaadanaya tababarkaasi, waxaana sheegeen inay ku rajo wen yihiin in tababarkaasi uu si dhammaystiran sida ugu habboon uu ugu hirgalo, iyagoo ku booriya haweenkaas inay ka faa'iideystaan tababarkaasi. way gaadhay ayay ka dhigan tahay. marka walaalayaal haddaad doonaysaan in meel la gaadho, fariinta waxa weeyaan xaafadda halkay ka dhisma waa ummadday ka dhismataa. haddaanay xaafaddu xidhiidh aana ka dhaxayn ma dhismi karayso. marka muhiimaddu waa iniga, muhiimaddu ma aha annaga. marka haddaan dowladda matin waxun bay nagu soo beerin karaynaa, wixii aad qabataan unbayna lagu beerinaya. haddaad wax kala goysaana inigaas kala gooyey miyaan ahayn? xaafaddanna waa xaafad aad leedihiin. markaa walaalayaal waad ku mahadsantihiin sanaad u timaadeen. anaga farxad bay tahay maanta aan arkayo waalidkii iyo meesha fadhiya, waana markii ugu horreysay aan waalid la kulmo. taasi allah naxariista wax nagu soo gaadhay geerida ku timid Caysha Warsame Yuusuf oo habeennimadii Sabtidii aanu soo dhaafnay ku geeriyootay Jabuuti. marxumaddu waxay idka kaga tagtay 8 caruur ah iyo qaar kale oo ay sii dhaleen. waxaana nabi uga baryaynaa inuu naxariistiisa janno ka waraabiyo, samir iyo iimaan ka siiyo ehelkii iyo qaraabadii ay ka baxday. inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun. iminka tan wararka degmada kadib toddobaadyo ay rabshado ka socdeen dalka Itoobiya, xukuumadda federaalka ee Jamhuuriyadda Federaalka Itoobiya ayaa waxa ay ku dhawaaqday xaalad degdeg ah oo muddo 6 bilood ah. go-aankaasi ka soo baxay xukuumadda Itoobiya ayaa waxa uu yahay markii u horeeyay tan iyo muddo haatan laga joogo 25 sano, iyadoo go-aankaasi uu ka dhaqan galayo guud ahaan dalkaasi Itoobiya. go-aankaasi waxaa lagu gaaray shirkii golaha wasiirada dalkaasi oo xubnaha xukuumaddu ay ka doodeen. ra-iisul wasaaraha dalka Itoobiya Haile Mariam Desalegn oo ka hadlay TV-ga ABC ee dalkaasi ayaa waxa uu sheegay in xaaladda degdega ay ka dambeysay kadib markii kooxo xiriir dhal ee dad shisheeye oo ku tilmaamay in cadow ay ku yihiin Itoobiya ay gacan siiyeen kooxaha ka soo horjeeda qarannimada iyo horumarka dalka Itoobiya, kuwaasi oo cadow ku ah shacbiga dalkaasi Itoobiya. waana sida uu hadalka u dhigay ra-iisul wasaaraha dalka Itoobiya. muddo haatan toddobaad laga joogo dhismayaal dowladda Itoobiya ay leedahay iyo shirkado gaar ah ayaa waxaa weeraray dad dibadbaxyaal ah haddii ay noqoto bartamaha galbeedka iyo duleedka magaaladaasi Addis Ababa. iminkii haatan qodobka hore ee wararka caalamka kusoo qadarana waxa uu yahay ugu yaraan 17 qof oo ay ku jireen 9 askari ayaa ku dhintay dalka Turkiga kadib markii gaari waxyaabaha qarxa laga soo buuxshay lala bartilmaamsaday goob military oo koonfurta bariga dalkaasi ku taala. 27ka oo iskugu jira askar iyo dad rayd ah ayaa qaraxaasi ku dhaawacmay, kasoo lagu eedeeyay inay ka dambeeyeen mitidiinta Kurdiyiinta ee PKK. weerarkan ayaa ka dhacay dhul u dhow xuduudda dalka Ciraaq iyo Iiraan. kooxa PKK ayaa deegaankaasi muddo dheer bayagu ka howlgala. ugu dambeynna labada murashax ee iskugu soo haray tartanka doorashada dalka Mareykanka Donald Trump iyo Hillary Clinton ayaa xalay yeeshay dood culus, taasi oo si weyn looga daawanaya caalamka. waxyaabaha ay ka doodeen waxaa ka mid ah arrimaha caalamka sida colaadaha Syria, dilalka dadka madowga iyo booliska Mareykanka u dhaxeeya iyo kuwa kale. Donald Trump ayaa intii dooda lagu jiray waxa uu si aan la filayn hanjabaad ugu jeediyay haweeneyda uu tartanku kala dhaxeeyo Hillary Clinton. murashaxa cunsuriga ee Donald Trump waxa uu ugu hanjabay Hillary Clinton in uu xabsiga dhigi doono haddii uu ku guuleysto xilka madaxweynenimada dalka Mareykanka. waxa uu intaas ku daray in sida ugu dhaqsaha badan uu magacaabi doono xeerlaaliye dambi ku soo ogaa Hillary Clinton. qodobka ayaa daawadayaal ugu dambeeyay war wixii dalkii dibadda naga soo gaadhay. kulankeena kan xiga inta ka horeysa waxaan idinku dhaafaynaa nabadgelyo.